markana warar dheeraad ayaa ka soo baxaya howlgallo qorsheysan oo ciidanka beesha Ciise ay ka fuliyeen tuulooyin hoos yimaada magaalada Habaas oo ka tirsan gobolka Awdal xuduudana ku taala dhowrkii bil ee la soo dhaafay halkaas waxa ka jiray qashqashaadooyin xoogan oo dhanka ciidamada ah waxaana wararka iyo macluumaadka aan helayna ay tilmaamayaan in laga cabsi qabo isku dhacyo kale oo dhanka ciidamada ah oo halkaas lagu arko saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka Ciise waxay tilmaameen inaysan xilligan iyagu daandaansi wadin laakiin hadii la isku dayo in maamulkooda la soo farageliyo ay qaadayaan tallaabooyin dheeraad khubarada arrimaha la socota sidoo kale waxay leeyihiin waa in la qaada tallaabooyin dheeraad ah oo lagu la dagaalamayo cid walba oo loo arko inay caqabad ku tahay maamulka Ciise waxay leeyihiin waa in la soo bandhiga xeerka buuga Ciise halka samaroonku iyaguna ay leeyihiin lama soo bandhigi karo tallaabana hore looma qaadi karo jawaabo ayaanu bixinayna taas oo dabcan xaaladda dab kale ku sii shiday dad badan ay u arkaan inay xaaladda gelin karto mugdi iyo inay maamulku ama dadku ka soo kabtaan dhacdooyinada halkaasi ka jira dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ku adkaatay jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa kadib fadhi degdeg ah oo ay yeesheen xubnaha qaramada midoobay arinta Israel iyo Somaliland is aqoonsigooda ayaa dabcan la geeyay fadhiga qaramada midoobay dowladda Soomaaliya ayaana arinkaasi ka dambeysay haddaba waxaan ku soo gudbin doonaa bilow ilaa dhamaad Abuukar Baale ninka noo fadhiya qaramada midoobay oo dabcan khudbad halka ka jeediyay isagoo oo si weyn u weeraray maamulka Yuhuudda Abuukar Baale dabcan wuxuu sidoo kale sheegay in Somaliland ay ka mid tahay dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu Abuukar Baale sheegay inaysan jirin cid kale ku dulmaamuli karta dalkooda iyadoo oo wadamada veto power kala yiraahdo ay si weyn u taageereen dowladnimada Soomaaliya wadamada Ruushka Shiinaha UK Faransiiska iyo sidoo kale wadamada kale ee veto-ga leh oo dabcan intaas ay ugu weyn yihiin ayaa dabcan diiday madax banaanida Soomaaliya in la farageliyo halka Mareykanku sheegay inuu dhexdhexaad arrintan ka yahay waxa soo baxaya warar iyo macluumaad sheegaya in dowladda Soomaaliya ay hadda ku adkaatay marka laga hadlayo fadhiyadii qaramada midoobay isla markaana ay guulo waaweyn gaartay sababtoo ah guulihii ugu dambeeyay waxay ahaayeen kuwa inaba aan caadi ahayn oo si xeeladaysan oo istiraatiijiyeysan ay dowladda Soomaaliya uga dabaalatay dhammaan dhacdooyinadii ku saabsanaa aqoonsiga ay Yuhuuddu siiyeen Somaliland waxa la leeyahay xilligan waxay dareemaysaa cadaadis inaba aan caadi ahayn dowladda Soomaaliya ayaa la warinayaa inay qorsheynayso in ay cunaqabateyn dhan walba ah saarto Somaliland cunaqabateyntu dabcan waxay u badnaan doontaa sidan xogta ku helayo cunaqabateyn socdaal cunaqabateyn dhaqaale cunaqabateyn amni cunaqabateyn bad iyo bari cunaqabateyn xataa dhul ah يعني Somaliland dunida inteeda kale ayay rabtaa dawladda inay ka go'doomiso iyadoo xataa diyaaradaha internationalka ah ee madaxda Somaliland qaada lagu amri doono sida ay xogu tilmaamayaan in ay soo maraan dhinacan iyo magaalada Muqdisho kadibna Hargeysa ay tagaan taas oo dabcan naxdin iyo urku taalla ku noqonaysa Somaliland Ethiopia oo daris la Soomaaliya oo weligeed bacdo lagu tilmaami jiray ayaa weli ka aamusan inay cambaarayso qadiyada la xiriirta Somaliland رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد وحوش جاي إن وسن أرن كان كهلي كريم سلام كان وحكو أمري شغالها الدولة ده قيبه هذا كل دوان يا سفارته هذا إن أي أرن كان كهلي كريم أو أي كأمسان هذه كلنا أي طلابة كقاعدة دونان dad badan oo arrimaha la socdana wax sidoo kale waxay leeyihiin tani waa ififaalihii iyo dabcan digniinihii ugu dambeysay oo dawladda Ethiopia ay doonayso inay ku sii wado faragelinta ay ku hayso Soomaaliya khubaro badan oo arrimaha la socota ayaa sidoo kale waxay leeyihiin dawladda Soomaaliya waa inay qaado tallaabooyin ka dhanna Ethiopia oo dabcan lagu la xisaabtamo faragelinta iyo sidoo kale in ay madax banaanida Soomaaliya wax u dhimayaan dadkii dabcan daawanayay khudbadihii laga jeediyay qaramada midoobay ayaa Abuukar Baale oo ah ninka noo fadhiya qaramada midoobay waxa si weyn loogu amaanay doorkiisa la xiriira arrimaha madax banaanida isagoo Israel ku eedeeyay inay dishay 80,000 oo caruur ah oo lagu laayay duqeymo ka dhacay marinka Gaza ilaa ay Rafa waxaa la soo warinayaa sidaas si lamida in ay jiraan duqeymo rayid kale lagu laayay burbur loo geystay dhismayaashii ugu dhaadheeraa Gaza iyo inay Iran weerareen sidaas si lamida qodobo kale oo muhiim ah ayaa dabcan labada dhinac isku soo hadal qaadeen sida ay dad badan aaminsan yihiin Somaliland baan aqoonsanahay
soomaaliyana waxaan leenahay kollay stoobkeegaad soo eega jirteenoo stoobkeegu soo eego 4 sano ayaynu u samraynay inay Soomaaliland cagaheega isku taagto waa dhalinyaradii guud ee beelweynta reer maxamed waa mulkiilayaashii gobolka awdal halkan waxa maanta ku sugan dhalinyarada beelaha reer maxamed oo ka hadlaysa kana turjumaysa baaqa ka soo yeedhay dhammaan aqoonsiga midnimada Soomaaliland waxaynu ka abtirsanaa 4 sano waxaynu suganay waxay qarannimada Soomaaliland waxaynu ilaalinaynay qarannimada Soomaaliland 4 sano ayaynu u samraynay inay Soomaaliland cagaheega isku taagto maanta ilaahay baa soo dadajiyay 4 sano ka bacdi maanta aynu 2026 garnay waxa inoo furmay dariiqii aqoonsiga Soomaaliland waa aqoonsan lahaa Soomaaliland uma baahna hagardaamo uma baahna ina yaroo suuqa rabshad ka sameeya uma baahna ina yaroo idhaahda calanka waxaan diidanahay yuhuuda waar yuhuudi inagu waxaynu isdhaafsanay siyaasad waxaynu isdhaafsanay aqoonsi laakiin ismaynu dhaafsan diin ismaynu dhaafsan yayna ku milmin diinta iyo aqoonsiga aynu Soomaaliland u doonayno yayna kala mid ahaadaan yayna isku milmin aqoonsiga Soomaaliland waa muqaddis haddaanu nahay beelihii reer maxamed waxaanu soo dhawaynaynaa oonu taageeraynaa oonu maanta garab joognaa madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro golihiisa wasiirada golaha baarlamaanka golaha guurtida iyo dhammaan shuruucda Soomaaliland oo dhan ayaanu garab taaganahay waxaanu maanta u heegan u nahay amniga Soomaaliland inaanu ka shaqeyno gaar ahaan amniga wadana ka shaqeyno gaar ahaan amniga sisibta aanu ka shaqeyno taasuu nagu matalayo xogayaha dawladda hoose wasiirka biyaha wasiirka maxaan idhaahdaaye macdanta iyo tamarta intaas way nagu matalaysaa war Soomaaliland guul Soomaaliland aqoonsigeega maxaa leedihiin Allah soo dedejiyo inta hadhayna Allah garbaheena iyo garabkeena iyo gaasheenkeena ka dhigo Soomaaliland oo guula Soomaaliland baanu taageersanahay Soomaaliland baanu aqoonsanahay Soomaaliyana waxaan leenahay kollay stoobkeegaad soo eega jirteenoo stoobkeegu soo eego 1960 yaa aqoonsiga Soomaaliland qaadatay maanta may qaadan Soomaaliland ha guulaysato halkan waxaanu ku hambaleynaynaa oo aanu u taaganahay اعترافك أي سوماليلاند هالشيء أنه هم بلينا ضد كرير بورما وضد كي سوماليلاند أساسي وضد كي مدنيمة سوماليلاند كاني وضد كي أي سوماليلاند كبلا بنتي وحنو لنا هاي اللغة بقمايو مدنيمة يود الشركة ومترير سوماليلاند وحنو لنا ضد كرير سوماليلاند يضد كرير بورما بقى نبت جريدة سوماليلاند ومقدس تاني كرير بورما وحنو باقيا magaaladani waa magaaladii nabadgelyada waa magaaladii aqoonta waa magaaladii ilbaxnimada iyo xadaaradda Soomaaliland waa dhalinyaradii guud ee beelweynta reer maxamed waa mulkiilayaashii gobolka awdal maanta waxaanu ka hadlaynaa waxaanu ka hadlaynaa oonu ku faraxsannahay oonu dareenkayaga oo shucuurteedu aad bay u kacsan tahay sababtoo ah 35 sano xornimadii naga luntay eenu degdeg iyo dhayalka iyo walaaltinimada iyo jacaylka aan Soomaalida hanu qabno hanu bixinay ayaa maanta Ilaahay dib noogu soo celiyay haddaanu reer Soomaaliland nahay maanta waan guulaysanay waxaan maxaa ahaydana leenahay haddaanu beelweynta reer maxamed nahay awal haddaan daawan jirnay gobolka awdal iyo selal gobolka gabiley in waxyaalo aan munaasib ku ahayn qarannimada Soomaaliland laga yar dhaxal hadlo way dhamaatay taas waxaan leenahay maanta awal rajo ku nool baan hayn laakiin maanta maxaan ku noolnahay mustaqbal dhow oo ifaya haddaanu reer boorama nahayna anagu Soomaaliland waa meeshii lagu dhisay inay dhayal ku duntana ogolaan mayno halkan waxa isku haya keenay waa dareenka iyo galgacaylka aanu hayno madax banaanida iyo aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliya yeeshay marka laga hadlo magaalada Booramana marka Boorama laga hadlayana iyo awdal dhamaanteedba horta waxaan nahay dadka ku suntan lahaanshaheega oo marag madoona waxaana nooga maraga magaaladan aaskeegii u horeeyay dadkii aasaasabanay annagu
magaaladan makhaayad shaah laga cabo tii u horraysay raggii sameeyey baan ka soo jeedaa anugu miskiid lagu tukado oo laga eedaamo waa geedgoble miskiidka loo yaqaano ragga dhisaan ka soo jeeda anigu horta lahaanshaheega magaaladan boorama guud ahaan gobolka awdal sidaasaan nagu leenahay nabaddeeda iyo amnigeega iyo xasiloonideedana wixii dawladda ka sokeeya cidinagagama horrayso annagaa gacanta ku hayna dhinacaan noo dhigi karna annaguna waxaan caddaynaynaa inaannu nahay reer somalilan inaannu ku faraxsannahay ixtiraafka yimidde waannu caddaynaynaa dadka isku qaldaya diinta iyo ictiraafkuna waxaan leenahay waar diintu waa meesheedii oo islaam baynu wadannahay dhammaan waana shahaadanaynaa siyaasadda iyo ictiraafka iyo waxaan yuhuudda loogu xoqonaya waddada ilahayna cid leeyahayna dee ilaahay hadduu nacay siduu nacay buu nacay siday ilaahay u nacay baan innaguna u nacnay dantay noo gashaa ictiraaf taasi waa taa waxaan caddaynaynaa dhallinyarta magaalada booramana wixii dhacay xalay qalad bay ahayd oo annaga raaligelin ka bixinaynaa boolajiis iyo xaal baanu ka bixinaynaa innagoo waxaa weeye hal ujeeddo wada leh goor gaaban hadalkeed gaaban baa laydho hadalka waan soo koobi wixii muhiim ahaana waxaa yidhi mas-uuliyiinteenna iyo salaadiinteenna anigoo dhallinyartiinni ka mid ah dhallinyartii xaafadda ka mid ah waxaa weeye hal mid umaan odhanaya waar waxaa weeye nabadda ayaa waxaa weye naas la nuuga leh nabad waxaynu ku heli weynina waxaa weeye colaad laguma helo innagoo maanta ay noo bannaantay 100 dariiqoo nabada dariiqa khaaskee colaadda waxaynu u doorannaa dee waxaa weeye caqli darrun bay noqonaysaa waa dhallinyartii xaafaddan waxaa weeye waxaan dhammaan isla wada qaadannay waxaa weeye in nabadgelyada guud ee magaalada iyo dalku inay muhiim tahay soomaalilanimadan aynu ku dhalannay ee aynu ku hoos dhirignay waxaa weeye aynu ku hoos kornay inaynu ilaashanaano inay muhiim oo lama taabtaan ay tahay muqdisho intii yaree xaafadaha ku wareegsanaa inayna maamuli karin baa waxaa weeye la wada ogyihi ninka xaafaddu deganaa ay amisom ku ilaaliso boorama sabab oo uga sheekeeyin inteedu laba jirto somalilan ilaahay bay naga dhigay waxaa weeye cashuurteennii iyadoo waxaa weeye laamidaasi ay 10 jeer raf tahay oo guryo ay wada dusan yihiin baa somalilan la soo bilownay maanta innagoo fiktii u sarraysay taagan oo ictiraafkii 4 sano la sugayey waxaa weeye maanta bilowgiisa yimi caqliyaddayna odhanaysa waxaa weeye aynu kowkow ka soo bilowno dee waxaa weeye caqli ma haynaadeen waar waxaa weeye hadalkii xogeeyo maanta halkan waynu la hadlay xogeeyaha degmadu waxaa weeye wixii ni odhanaya wuu niyi dhalinyaro innagaa magaalada amnigeenna haddaydan idinku ka shaqaynin waxaa weeye sugmi maayo hadalkii xogeeyahana waynu taageersannahay weeye in horta kala shaqayna amniga dhammaan waxay ciddii u qaabilsan taasi waynu caddaynaa soo dhammaanteen nagama goona laamaha amniga inaan kala shaqayno amniga soo nagama goona galabta waxaynu joognaa magaalada boorama waxaan halkan ka caddaynaynaa magaalada boorama waa magaaladii somalilan lagu dhisay waa magaaladii lagu aasaasay waa magaalo halgan badan iyo tabac badan uu kaga jiro somalilan maanta waxaannu halkan ku caddaynaynaa waxaannu aad iyo aad marka kooda soo dhowaynaynaa aqoonsiga somalilan ay siisay dawladda israa'iil waxaa kaloonu halkan ka caddaynaynaa habeenadii ugu dambeeyey magaalada boorama waxaa ka jiray dhallinyar bilaa ujeeddaa oo ka wada qas iyo boob iyo waxa weeyaan kacdoonkuna hadduu bilaa aragti yahay waa laga qoomameeyaa waxaannu halkan ku caddaynaynaa annagoo ah dhallinyarta beelweynta reer maxamed in maanta laga bilaabo aanaan u dul qaadan doonin cid kastoo magaalada boorama rabshad ka wada waxaannu halkan ka taageersannahay baaqa ugaaskayaga guud ugaas cabdirashiid iyo dhammaan mas-uuliyiinta kale ee xukuumadda nagu matala oo ugu horreeya xogeeyaha dawladda hoose degmada boorama waxaa kaloonu halkan ka caddaynaynaa in magaalada boorama amnigeega aan cidna loo daba fadhiisan doonin cid kasta oo khalkhal iyo amni darro ka samaysan aan gacan biro ku qaban doonno somalilan guul soo maaha somalilan baynu nahay soo maaha sidaasaan isku ognahay waxaan somalilan u sheegaynaa xuska qarannimada somalilan waa muqadas cid kasta oo qarannimada somalilan ka hor timaadaana waddo kaley maraysaa waxaannu u sheegaynaa soomaaliya in la kala tegey wakhtigaasi dhammaaday wax midnimo la yidhaa ayna jirin fidna isuguma inaanimane wanaag baynu isugu nimi magaaladeenna maanta horumarkaygu halkuu marayo aad og tihiin ayaynu isugu nimi sidii aan halkaa uga sii kobcin lahayn dhallinyarta gobolka waxa aan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad baa u sheegayaa maalmihii dhoweyd ee shaqaaqadii ay dhacday waxa qaday reeraa qaday run ahaantii dad baa dawadoodii farmasigii ay ka iibsan lahaayeen dee farmasiguu furmi waaye dhibaatooyin noocaasaa dhacay
warniyo marka aad mudaharaad samaynaysaan waxaan leeyahay war bal mid la ogsoon yahay oo aanay waxna inagaga dhimanin aanay waxna inagaga dhaawacmin qofna aanay dhibaato ku arag dee ku dhaqaaqa waa saxe dhalinyarta fardaha beelaha reer maxamed ee qabanqaabadan samaysay oo ka mid ah beelaha aan suldaanka u ahay ee makadoor aad iyo aad ayaan inagu mahadnaqayaa sida aad u qaadateen xilkiinnii saaka 6dii baan baxay xafladdan xaflad la mid ah ku soo qabtay cala xayd iminkana halkan baad igu qabateen oo maxaad ahaydin ininka oo xilkiinnii qaatay xalay waan warwarsanaa wixii magaaladan aan ku arkay aad baan uga cadhaysnaa haddaad xilkiinnii qaadateen dhallinyarteennii aad iyo aad baan inagu mahadnaqaynaa gudaana saaxiibyaal wararkeena intaas ayay ku dhan yihiin hadday tahay markii kugu horeysay ku soo bir janalkan waxaad heli doontaa wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daawacno aragtidaada qaybta commentiga kaga dhiibo soo dhawow daawade maalin wanaagsan